سفارة دولة إثيوبيا ay ku leedahay Muqdisho ayaa casuuntay madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta caalamka u jooga Soomaaliya waxaana munaasabada ku saabsaneyd xuska 20ka Gimbood oo ah markii dowladda Itoobiya ay ka adkaatay kooxihii nabadgelyo darrada ka waday gudaha Itoobiya iyo xukunkii kale taliska ahaa ee Mingista Haile Mariam Itoobiya ayaa sidoo kale doonaysa inay si abaqaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Soomaaliya taa oo ayna qayb ka ahayd munaasabada safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa ayaa ka sheekeeyay horumarka dowladda Itoobiya ka sameysay arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka dowladaha dariska ah ee ay Soomaaliya ka mid tahay iyo dib u kabashada xukunkii kale taliska ahaa ee muddada dib u dhigay Itoobiya waxaa caawa farxad weyn inaad nagala soo qaybgashaan munaasabadan 20aad ee ku beegan 28 bisha May waa maalin weyn oo xusuus badan nagu leh waa maalintii dhiigacabihii Mingista Haile Mariam dalka laga eriyay isaga iyo xukuumaddiisa halganku wuxuu ahaa mid soo socday 17 sano oo ay bilaabeen dhalinyaro ka carartay cadaadiskii xukuumaddii gumaysiga ahayd ee hogaaminayay Mingista Haile Mariam halkan wuxuu ahaa mid dhiig fara badan iyo hanti fara badan loo waray 28 May waa maalin baaldahab ku leh taariikhda Itoobiya waa maalin weji cusub ku bilowday xiriirka labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya waxaa la midoobaan ah in 2007 safaaradda Itoobiya ay ahayd safaaradii koowaad ee dalka dib looga furay xiriirka labada dalna uu soo wanaagsanaanahay maalmahan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo asna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay Itoobiya inay ka soo kabatay xukunkii kale taliska ahaa muddadii dunida uu ka reebay waa maalintii dalka laga saaray Mingista Haile Mariam iyo dargigii nidaamkan hadda jira uu soo bilaabmay waan qirayaa waa runtii waxaan leeyahay colaadu ha ka dhamaato geeska Afrika nabadi ha u soo heeto geeska Afrika dhammaanteen arrinta waa inaynu maskaxda ku qabsannaa munaasabada 20ka Gimbood oo 28ka May sanad kasta Itoobiya ay xusto ayaa munaasabadan loogu dabaaldegayay waxa joogay مسؤولين وكمل ها رئيس الوزراء كحجينك الصومالية وسيرو سفيرو قدوميها قبل كبنادر سراكيل عيدا هي مسؤولين كلا أو حس كان لقوا مرتقى